marka ugu horeysa tuhun sidiisaba wax laguma sameeyo. waxa weeye marka ugu horeysa dawladda marnaba qaanuunka ma jebin karto ayada ku timid qaanuun iyo doorasho in ay qabataana looga fadhiyaa. meesha caalamka waxa ay rabtaa saamileyda dawlad goboleedyada iyo dawladda inay kulmaan ka wada hadlaan arrimaha ammaanka arrimaha doorashooyinka. hase ahaatee baarlamaankii kalfadhigan 10aad marka uu furmay waxaa soo baxay in kulankii baarlamaanka dib loo dhigo iyo in gudoomiyihii guddiga doorashooyinka uu hor yimaado dib loo dhigo. sababaha keenay ilaa ay xadeertaan lama shaacin, laakiin baarlamaankan waxaa la soo gudboonaaday xaalad aad u adag oo baarlamaanadii hore aan marnaba loo soo gudboonayn. coronaviruska waa la socotaa, wadankanna waa ka jira, caalamka oo dhan dib ku kunto, dhaqaalihii, waxbarashadii, ganacsigii, shaqadii saameyn ayuu ku heshay. digii marka baarlamaanku u qaabilsanaa arrimaha doorashooyinka ee la rabay in ay ka shaqeeyaan arrimahan waxay sheegeen inay u baahan yihiin waqti dheeraad. waxaas marka la fiiriyo iyo xaaladda jirta marka la fiiriyo baarlamaanka awood ayuu u leeyahay inuu jadwalkiisa asaga uu samaysto. sida xataa kulankooda loo qaadaynayo kala fogaanshaha sida loo fariisanayo waxyaabo fara badan ayaa jira. waxaas waa wax farsama, laakiin meesha ay bahasha ka guuxayso waxa weeye tuhun ayaa jira dawladdu waxay rabtaa in ay waktiga kororsato. dawladda sida keliya ay waktiga ku kororsan karto waa nidaam qaanuuni ah. haddii ay qaanuunka khilaafto laga yeeli maayo. beesha caalamkana kama yeelayso, mucaaradkana kama yeelaya, shacabka soomaalida kama yeelaya. marka qaanuun ahaan arrintan ay dawladda ugu tilaabsan kartaa. dawladda waxay ku tilaabsan kartaa baarlamaan kasta siyaasadda ay dawladdu riixayso haddii aqlabiyad u hesho oo loo codbixiyo oo ay ku guulaysato siyaasaddaas qaanuun bay noqonaysaa, meelmar bay noqonaysaa. haddii looga adkaadana arrintaas meesha ayay ku joogsanaysaa. dawladdu marka waxaa la tuunsan yahay in xildhibaano ilaa iyo 60 in ka badan in ay golaha wasiirada ku jiraan, saaxiibo fara badanna in ay baarlamaanka dhexdiisa ku leeyihiin. xildhibaanada ay si ikhtiyaari ah oo dimuqraadi ah u codbixiyaan oo dawladda siyaasadda riixayso ay marto waxa weeye nidaam qaanuuni ah ayay dawladdu waxa ay ku helaysaa waxa ay rabto. mucaaradka marka waxaa looga baahan yahay baarlamaanka dhexdiisa inay ka dhex ololeeyaan ayana aqlabiyad u helaan sida isaga difaaci lahaayeen siyaasadda ay diidan yihiin. hawshaas intay socoto waa nidaam dimuqraadi ah. baarlamaan kasta adduunka jira ayaa sidaas oo kale tusaale ahaan Margaret Thatcher waxay ahayd ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska muddo dheer ayay wadanka haysatay. waxay soo rogtay ayadoo aqlabiyad baarlamaan ku haysa canshuur in dadka lagu soo rogo. canshuurtii dadkii baa ka hor yimid mudaaharaad iyo rabshado. 48 saac gudahood ra'iisul wasaaradii waxaa lagu khasbay inay iscashido dawladeeda ay dhacdo. doorashadii markii la galayna xisbigeedu uu guuldareystay. dawladdan marka siyaasadda ay riixayso haddii ay aqlabiyad fiican u hesho oo si qaanuuni ay ku meel mariso, laakiin tiras fara badan oo ka mid ah ururada bulshada iyo gobolada ay ka soo horjeestaan waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso dawladda jiritaankeeda. waxa weeye waa nidaam dimuqraadi ah. laakiin ilaa iyo hadda waxa socda iyo waxa jira wax qaanuunka ilaa hadda khilaafsan ma jiro. xataa mucaaradka ka soo baxaya sida loo hadlayo waa nidaam qaanuuni ah. hay-adaha dastuuriga ah waktigii loogu talagalay in doorashada la qabto waxaa la isticmaalayaa luqadii dastuurka. waa maasanta waxaan rabaa marka waxaa jira baaqiyo beesha caalamka iyo qaramada midoobe ka soo baxay oo ah in dawladda iyo maamul goboleedyadu ay wada fariistaan arrintan ay ka wada hadlaan oo ammaanka iyo doorashooyinka. haddii ay dhacdo dawladdu inay la fariisato maamul goboleedyadu, ma isleedahay iyaduna si sharci ah ayay dib u dhaca doorashada ugu guulaysan kartaa ama rabitaankeeda waa u meel mari karaa? marka la fiiriyo dawlad goboleedyada hadda jira waa 5 dawlad goboleed. Puntland iyo Jubaland iyo dawladda iskuma fiicna. Jubaland dhexdooda khilaaf ka dhex jira waa dhamaysteen, laakiin maamulkii Jubaland iyo dawladda iskuma fiicna.
puntland iyo dowladdan iskuma ficna puntland naftirkeeda madaxweyne ku-xigeenka ayaa ishaysta waxa weeye marka shantii qaybood ee dowlad goboleedyada laba ka mid ah ayaan dowladda siyaasadeeda u dhuunduleeyay saddexda kale hadday dowladdu hesho waxaa haysataa weli caqliyad baa haysata siyaasadda ay riixayso shirkan haddii uu qabsoomo oo lasugu yimaado siyaasadda ay riixayso caqliyad boqolkiiba 60 ay weysaa halka labada dhinac ay kale boqolkiiba 40 ay noqonayaan marka dowladda mar kastaba tan waxaa ugu jirta inay qaanuunka ilaaliso in ay si qaanuuni ah iyo si dimuqraadi ah ay siyaasadeeda wax ololeyso baarlamaanka dhexdiisa iyo dowlad goboleedyada dhexdooda laakiin sidaas si lamid haddii mucaaradku ay maareeyaan in ay ka dhex ololeeyaan dowlad goboleedyada dhexdooda iyo hadday ka dhex ololeeyaan baarlamaanka dhexdiisa oo siyaasadda dowladda iyo qodobada ay rabto in ay qaanuunka isbedel ku samayso ay raadinayso ay ku jiriyaan halkaas ku istaagayaan waxa weeye midda kale dowladdan laiskuma diidana waktigeeda in ay maamulkeeda waktigeeda ay u madax banaanta waxa la isku hayaa waxa weeye wasiilaadka iyo nidaamka ay isticmaalayaan baarlamaanka haddii xildhibaanada ay ikhtiyaarkooda u dhiibtaan ra'yigooda oo si aqlabiyada dowladda u taageeraan qaanuunka isbedel waa lagu samayn karaa laakiin su-aasha meesha ka taagan waxay tahay xildhibaanadii qaar ka mid ah siba xildhibaanada kasoo jeeda gobolka somaliland ayaa sheegaya anaga dhexdeena ololana ka wada haddii ololaha u wado ay dowladda farsamo ahaan isticmaalayso oo dimuqraadi ahaan isticmaalayso weli waa meel mar sidaas si lamid ayaa waxaa laga rabaa mucaaradka inay ayagana ololeeyaan baarlamaanka dhexdiisa ka ololeeyaan ay isku duburitaan saaxiibadooda laakiin waxaa meesha ku jirta dad badan ay isweydiinayaan haddii xubnihii golaha wasiirada ee baarlamaanka ku badan yihiin xildhibaanadii in badan oo ka mid ahay ay madaxtooyadii ku xiran yihiin dowlad goboleedyadii la sheegay in la dhistay aanay u madax banaaneen siyaasadooda iyo go-aanada masiiriga ah go-aanka ay gaaraan iyo wixii codaha ay bixiyaan sax ma noqon karaayo ma ku qasban yihiin mucaaradku inay u hoggaansamaan mise waxaa weeye doorasho iyo cod aqlabiyad leh oo aan madax banaaneen oo gadaal laga riixaya halkaa kasoo bixi noqonay xukuumaddan iyadoo ay u badan yihiin golaheeda wasiirada xildhibaano waxaa ansixiyey baarlamaanka si qaanuuniga ayay ku taagan yihiin waxa weeye kale oo meesha ku jirta waxay tahay oo qofka inuu u yeesho tahay waxa weeye talaacubka cayaarta baarlamaanka dhexdiisa oo siyaasadda la isku riixriixayo oo nin walba siyaasadiisa u dibaadsanayo baarlamaan kastoo dimuqraadi ayay ka dhacdaa waxa la diidayo beesha caalamka ay diidayso mataqaanaa mucaaradka ay diidan yihiin waxaa weeye jujuubka xildhibaanada qaarkood iyo inkumaalka laakiin si dimuqraadi haddii dowladdu u hesho aqlabiyad ku filan oo ay ku marsiin karto siyaasadeeda u malayn maayo in wax qalad oo weyn ay meesha ka jirayaan laakiin waxa weeye dowladdu si qof walba ikhtiyaarkiisa xildhibaan kasta ikhtiyaarkiisa inta meesha ku fadhiisto marka la yidhaahdo codka hala bixiyo sidee codka loo bixinayaa maqarsoodi baa loo bixi magacantaag baa loo bixinaya in waxaanoo dhan inta laga heshiiyo si cad tabaxo kan kale haddii ay dhacdo ay dowladda sida ay rabto ay meesha ku marsiiso qaanuunkan aqlabiyadna u hesho haddii qayb weyn oo kamid a mujtamaca soomaaliyeed in la dhacsanayn khalkhal ayaa imaan kara xataa marka waxa weeye dowladda laftirkeeda iyadoo wadatashi xagga qaanuunkaa samaynaysa cayaarteeda ay ka dhahwada baarlamaanka iyadoo wada ayaa waxaa loo baahan yahay in luga dooqo ku jira midba mar inay saarto oo ay arrintan maadaama dhinacyo fara badan buuxayaan in ay aada uga fiirsato ugu dambeyn ustaad haddii ayba dhacdo in intaasba dowladdu maadaama ay aqlabiyad hadda badanaa la sheegay inay haysato ay si codaha ay ugu ansixiyaan ama ay u codayaan maxaa is leedahay way ka imaan karaan dowladaha caalamiga ah ee dowladdan taageera beesha caalamka iyo qaramada midoobay maxaa culeysaada xaggooda ka imaan kara mucaaradka mowqifkooda waa cad yahay mucaaradka marnaba yeeli maayaan in dowladdu ay bedesho qaanuunkii hore u dhisnaa ee la xiriiray doorashooyinka waxa loo igmada waxay ahayd in doorashada ay waktigeeda ku qabato laakiin dowladdu hadday door biday
isleedahay qaanuun ahaan waa marsan kartaa oo ay marsato caqabada waxay noqonaysaa mid khalkhal keeni karta xagga siyaasadda iyo xagga ammaanka laakiin weli heerkaa lama gaarin marka hore waxaan sugaynaa baarlamaanka inuu kulmo iyo dowladda wixii ajenda ay la timaado iyo waxa ay ku talagelayso iyo wax walba oo ay samayso mucaaradku waxa ay baarlamaanka dhexdiisa ka samaynayaan haddii waxaas oo dhan ay si dimuqraadi u dhacaan oo si dimuqraadi loo kala baxo waxay noqonaysaa oo daaha furan waxay noqonaysaa qaanuunka in la ilaaliyo wadankan in ku filan dib waa soo maray midda kale haddii baarlamaanka lagaaga adkaado oo cod lagaaga adkaado waxa weeye in aad u hoggaansato mabaadi'da dimuqraadiyadda ee ah aqliyad ayaa lagu bedelay baarlamaankana sidiisaba xaq waa u leeyahay inuu dib u fiiris ku sameeyo laakiin qodobkan ah ma bedeli karaan ay horsan karaan xildhibaanada waktigooda ayadaa nafskeeda haddii inta baarlamaanka uu shiro oo arrintaasi dib weegis ku sameeyo oo qodobka ku qoran dastuurka ay wax ka bedelaan way heli karaan aqlabiyadu helaan dowladda waa la taageeraa awood weyn ma lahan beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo dhaqaale ku bixiyaan doorashada iyo soo kabashada Soomaaliya saameyn weyn ku leeyihiin marka haddii ay dhacdo xataa in baarlamaanku ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyaan dib u dhac dowlad goboleedyadu ogolaadaan maxaa dhankaas ka imaan kara oo dowladdan taageera beesha caalamka farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan dowladda Soomaaliya taageeradeeda kama maqan haddii ay arkaan nidaamka dimuqraadiga haddii si sax loo maro oo ay dowladdu olayn buuxda inta samayso oo tilaabo kasta ay qaadayso ay la wadaagto macluumaad saxa hay'adaha iyo dalalka taageera waxaa laga yaabaa in ay dhow hesho laakiin marnaba laga yeeli maayo xukuumadda inay qaanuunka jebiso una malayn maayo aniga inay ku dhici karta xataa xukuumadda inay qaanuunka jebiso